السلام عليكم ورحمة الله. maanta waxaan ii wadaa qiso oo cajiib leh. qisasooyinka waa wax fiican, waxaa ka helaysaa ra'li oo fiican ayaa ka helaysaa. waxaa jiri jirtay gabar oo ku nool wadanka Imaaraad iyo nin oo Sacuudiyana way isguursadeen. markay isguursadeen waqtigaas waxay ahayd 1980 ay ahayd 1985 ahayd. markii dambe ninka wuxuu lahaa jiray shaqo meel koobala ayuu u bixi jiray. wuu baxay haddana soo markii ay soo dhawaa rabto wuxuu dhahay ma kaa tagi lahayn islaanteydii xaajiyadeedii, laakiin waxaa isoo galay arrin degdega oo shaqada ah. hadday fool ku qabato islaantan diriskeena oo duqda ah wado hayabo wuxuu ilaahay wado oo rabbi subxaana wa tacaala wuxuu wado qof celi karta male. waayay dhacday waxaa raacday islaantii foosha ayaa qabtay, islaantii baa raacday. islaantii markay raacday ay isla tageen isbitaalkii way dhashay. gabadhii waxay aaday musqusha camal, doctoorkiyaa imaaday. intay musqusha jirtay gabadha dhashay, markaas waxay dhahday hooyadii way dhimatay. okay, waagaasna adduunka horumarka harta iyo casriga ma ahayn. waayahay dhahday, markay dhahday waxba kama qabiya dhahday hooyadiina waxay ku dhahday gabadhaadii yareed way dhimatay. okay, way baxday hooyadii way iska soo baxday. gabadhii Sacuudiyaanka gurigeeda iska maantay, odageedii aa imaaday. maxaa dhashay gabar way naga dhimatay, allah sabar naga sii. waaya cajuusadii waxay samaysay, waxay tagtay sharciga isbitaalka ugu bixisay. meesha waxay geysay oo ilmaha la geeyo. meeshii ayay aaday. markay meeshii aaday waxay kusoo wadatay rasmi iyo waraaqo iyo wax kasta. waa islaantii duqda ahayd. gabadhii yareed islaantii way guurtay. markay guurtay ay baxday, gabadhii yareed ay korsatay, way u weynaatay, waxay bartay qur-aan, maasha allah, mastuur kaala arag. gabadhii ayaa inay guursatay rabtay. hooyadii markasta qalbigeeda wax riye arkay. maalin waxay aaday isbitaalkii ay gabadhii waagii ku dhashay ayay aaday islaantii. markay aaday waxay leedahay waqtigaas gabar aan dhalay waxa ay igu dhahday islaantii la socotay way dhimatay. markaas waxaa la sug islaantaas iyada ayaa dhalaaday. markaa baxday hooyadii cunugaan dhashay way dhimatay. waxaan la geynaa meesha ilmaha lagu koriyo ayaa la geynaa. meeshaas markay geysay haddana waxay ugu soo qaadatay rasmi iyo waraqada sax ah. sidee ku dhici kartaa? ma sheegi kari. islaantii gabadha dhashay ma harin. way raadisay. islaantii waxay ku arday gabar yaroo qurux badan oo gabar weyn oo inay guursato rabto. way u tagtay meeshii gurigay deganeed ayay ka raadisay. way ka guurtaa la dhahay. way ka daba raadisay meeshay tagtay. waxay dhahday gabadhan yar yaa dhaloo kuu dhalay? gabadhan waxaan ka keensaday meesha oo ilmaha waalidkood dhinto amba ilmaha aana waxbaysa. gabadhan hooyadeeda way dhimatay. okay, gabadhan goormay dhalatay waqtigaas? okay, waqtigaas may dhalatay. haa, mar labaad isbitaalka ku noqotay. waxay dhahday waa jirtaa cunug dhalatay waqtigaas. waa la qaatay meesha waxaa la geeyay ilmaha lagu koriyo. okay, islaantii gabadha dhashay iyo duqdii way harweysay. islaantii way harweysay. waxay dhahday gabadhan DNA inoola kala qaadaa rabaa. aniga gabadhan mawaalantahay dhahday. yes dhahday inoola kala qaadaa rabaa. waa lasoo waday DNA laga qaaday. DNA markii la qaaday 100% ma noqonin. subxaan allah, ilaahay markuu meesha wax ka wado waa mucjiso. 100% ma noqonin. islaantii way sabri weysay. haye ma kuu sheegina haalda way sabri weysay. way baartay way harweysay. soo noqotay hooyooyinkeena jannada allah gasho maasha allah. hooyo hadday deganta hooyadoo kala jirto, hooyo Soomaaliyeed wax ka fiican adduunyada ilaahay ma abuuro. ilaahu hooyooyinkeen jannada noo geli. way soo baxday, way sabri weysay. haddana waxay aaday meeshii cunugta la geeyey. warqado rasmiya, magac, wax kasta rasmiya. xataa meeshay geysay rasmiya haddana ugu soo baxsatay waraaqo. markii dambe haddana mar labaad waxaa lasoo hor istaagay maxkamadda. ilaahay amarkiis subxaan allah, ilaahay amarkiis
hooyadan waa sabri weysan tahay si kale qalbigeeda yahay ma joogi karto aabihii wuxuu dhahay magaceedii waxaa naga keentay meelow meela cunugta ilaahay ha naga sabar siiyo hadday dhimatay allah u naxariisto saqiir aqiree noo noqone sabar hooyadan warkii ma yeelina waxay dhahay aniga holiday ciddeydu aadaa waa soo baxday gabartiya kor ka fiirisaa mar kasto gabadhiya kor ka fiirisaa meel kastay ka daye meel dheeray ka daye markii dambe haddana mar labaad maxkamadii wuxuu ku dhahday ninka qaadiga ah wuxuu ku dhahday aniga ma sabarsaniyo sabar ma lihi qalbigayga wax kale ayuu sheegaa islaantana wax kale ayay sheegaysaa fadlan hal wal xaata igu caawiya dhahday islaantan maxkamadda mar labaad soo istaajiya maxkamadda keena islaantaana ilmo ma dhalin oo duqda ah weligeed ilmo ma dhalin ilaahay ilmo ma siinin marka waxay leedahay cunugtan waxaan kasoo wada meesha ilmaha lagu koriyo oo aabba la-aanta iyo hooya oo aabahoodooda dhinta ayaan kasoo wada idhaaf islaantan waa sabri weyse mudday ku qaadata bilooyinay ku qaadata markii dambe maxkamadii ayaa duqdii u wacday maxkamadii ayaa lasoo wada hor istaagay ilaahay ma joogo labada qof isdhasha dhiigooda ayaa isjeclaanayo dhiigooda ayaa is urinayo aada iyo aadayna isku rabaayaan adduunyada way jirtaa dulmiga badan ma fiicno wallahi anaga waan isdulminaa haddaan bila-aadanahna waan dulmi badannahay gabadhii yareed hooyadii waydaye gabadhii hooyadii way isdayayaan xoog ayay isku dayayaan markii dambe waxay samaysay maxkamadii markii lasoo istaagay hadda qofta beenta sheegayso qofta runta sheegayso qofta beenta sheegayso oo beenteeda been soconaysa ay tahay ilaahay lama jiraayo xaqiiqo waay taas islaantii duqda aheyd marka meesha lasoo istaago dhulka ayay ku dhacday dhulka markay ku dhacday ay miir doqmatay waa lasoo hortay isbitaal ayaa la geeyey inay siday maxkamadda ku baabi'iso wuxuu dhaha markay soo fiicnaato ay soo raysato mar kale ayaan sameeyeynaa fadhiisiska labaad hayabo haddana bir ka bacdi maxkamadda la isla imaaday ilaahay ma joogo asaga raxmaan ma oo islaanta way sabri weysay gabadhan sacuudiyaanka way sabri weysay gabadhaas dumarka way sabri weysay duqdii mar labaad haddana wadni inuu aqid markaas eedooy waa yeelaa tahay adduunyada waa kasii socotaa markasta wadna iyo meel markii maxkamadda intaana lagu keenin wadna maku xanuunayo maxkamadda markii lagu soo istaajiyo wadnaha ku shalala markii dambe duqda cajuusada waxay dhahdeen nacamti yaa binti waa sax aniga ayaa gabadhaada kaa qaaday markaad musqusha gashay ayaa waxaan ku dhahay doctoorkii caawa islaantii meeshaan joogtay adigana cunugtaadi waa meer beelneed markaa dhalaysay musqusha ayaa aday dhiig baa kaa socday waa soo qubaysta ninkii doctoorka markuu imaaday ayaa waxaan ku dhahday islaantii waa dhimatay gabadhaan dhashay horaa loo sii qaaday waagaasna adduunyo sida hadda lama oo doctoorka waa iskale cunugtina sidii ayaa ku qaaday adigii markaan ku diyaariyoon bixi rabno ayaa cunugtii soqay markaasaan ku cunugtu way dhimatay arada ilaahu saqiir caaqira iiga dhig waa iskay raacdaa dhahday waan soo noqday cunugtii yareed meesha waxaan geeyay ilmaha lagu xanaaleeyo meesha keerka ayaan geeyo oo ilmaha lagu xanaaleeyo meesha markaan geeyo muddo markay kasoo rodana waa noqday aniga ayaa korsanaya waraqaha waxa dhan rasmi ayaan kusoo baxsaday dhahday yaa bint gabartaydii adigoo raaliga ahaanaysid oo adduunyo aakhir isaamaxaysid gabadhaadan adigaa dhashay waa gabadhaadii adiga aa dhashay igana raali ahaaw gabadhii waatanaa maasha allah hooyadii oo islaanta duqda ay ka qaato hooyadii waxay aragtay gabadha hooyadii markay ku dhaday hooyadii waxay aragtay gabarteeda maasha allah si qurux badan si akhlaaq diin loo baray nin guursatay markaas nin u joogtay maasha allah tabaarakallah hooyadaana waxay dhahday inaan ku dhaawaco ma ugu talagelin laakiin qalbigayga shaydaan iyo waswaas ayaa igeliya inaan gabadhaada qaato oon kaa wato
adigoo raalli iga ah oo isaamaxaysid oo ilaahay wejigiisa ku saamaxaysid gabadhaadina waa tanaa hana ixirin soo booda hooyadii waxay dhahday eedooy lagama yaabo inaan ku xiro ilaahay damiirtaada sidaas kuu geliyey oo shaydaani wiswis oo inaad gabadhayda qaadatay ku geliyey ilmo kale waan haystaa gabadhayda sidaa u qaadata ayaa hadiya kuu siiyey wana ilaahay cimrigaada ha dheereeyo gabadheedina waxay hooyo anigu waan ku dhalay laakiin islaantan ayaa hadiya kuu siiyey ku qaadatay iyadan kuugu sii dhamaystiray qisasooyinkaas way dhacaan waa qisasooyin cajiib ah walaa xataa waxaan fiirsanaa qisasooyin kale dadka shaqaalaha ilmahooda ugu tagana ku amaaneysanayo iska ilaaliya halaas ayaan igu dhiirigelinaa because ma fiicno badana hadda afrikay ka dhacdaa sidii Kenya camal Nairobi hooyooyinka shaqay aadayaan naag ay soo qabsanayaan oo wadamadaas u dhalatay ilmihii ugu tagaysaa risaaqada ayaa meesha ku jiro maxaa la sameynaa hooyo haddaanane subxaanallah markaad ilmihiina dhalaysiin taakadii hadda adduunka sidii hore ma adduunka horumar ayuu gaaray maasha allah sidii waagii oo jaahiliyada oo dadku waxba fahmaynin ma aho maasha allah walaalahay qisadeydii halaas ayaan kusoo dhameeyey hooyada sawirkeeda iyo cunuga ayaa meesha in soo saaraa like iyo sharing iyo comment igu dhiirigeliyo qof kasta qofti like iyo sharing iyo comment isa messages akala khair idii ilmeeda janna allah galsho dambigeedana allah dhaafo hadda wiil dumar iyo rag bahday yihiin qof kasta oo isa message iskaraab acla janna ayaa ugu duceeya maanta taariikhda waa 29 bishii January bishii koobaad 29keeda 2021 maanta oo jimco ah waxaan iga tagay fi amaan allah walaalay meel kasta joogtin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh